السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cudurdaarada musmaarada loo isticmaalo in lagu dhiso aqalka guuldarada oo raadi bil rajayn boqolkiiba 99 guuldarooyinku waxay ka yimaadaan dad kale caadada ah in wax walba cudurdaar loo sameeyo ama ku tiirsan hal shay oo kaliya. sheeko xikmad leh ciwaankeeda sacaaga dil waxaa jira xikmad badan oo dadku taliya tacniin u raadsadaan. wiil dhalinyaraha ayaa u yimid wuxuu weydiistay xikmad waxtar u leh si uu wax ugu qabsado adduun iyo aakhiraba. xikmadani waxa ku hooyay wiilka in rabitaanka xikmadu ay ka tahay mid dhab ah. markaas kadib ayaa wuxuu la galay socdaal kuna yiri in marna soo tusay waxay tahay xikmadu maalin la socay oo maalin kale la socay oo tuulooyin badan la mar kadib markii muddo la soconay ayaa ninka xikmada badnaa wiilka waxa uu sheegay inuu raadinayo reerka ugu sawarsan tuuladan ay marayaan. muddo kadib ayaa arkay guri dhaqashaan mutulana ahayn cariishna ahayn oo aad u baaba'san. waxa guriga banaankiisa ku xiran sac reerku leeyahay. reerku waxay kooban yihiin 8 qof waxay dhamaantood ka shaqeynayaan sacaas. waa mid lisa mid caws u dhiga mid daajiye mid xerada oodaya mid daryeelkiisa kale u qaabilsanba. xikmadani waxa wiilku ku yiri caawan reerkan baan la baryeynaa ama hooyeynaa. reerku soo dhaway martida u timi iyo ka cudurdaatay in sacaas caaniis ama ahee aysan wax ka dhahayn wixii haysteen way la wadaageen. xikmadani waxa reerku u sheegay inay guureynayaan oo socod dheer sugayo waana nabadeyn reerka maadaama ay jarmaadayaan. inta qofna kicin ayuu kacay xikmadani waxa ku leeyahay xerada markaas ayuu bilaabay ama mindi la soo baxay oo sacii gowracay. wiilka ayaa qeeriyo oo yiri saca kaliya ayaa reerku leeyahay sidee uga dili kartaa. xikmadani dhag jara uma siin hawshiisa ayuu watay markaas ay shanqar la'aan socodkoodii ku sii wateen. hal sano kadib ayaa xikmadani wiilku ku yiri inakeen waan soconaynaaye waxayna yimaadeen tuuladii uu sac reerka ka dilay. markay meesha yimaadeen ayaa wiilka garan waayay gurigii ka soo meeshu tahay goobtii uu ku ogaa gurigii dhaqashka ahaa. waxa bedeli guri cusub oo daar ah waxaana ku kor yaala beer aad u weyn oo dadka jooga ay mashquulsan yihiin qof walbana hawl gacanta kula jiro. guriga ayay yimaadeen oo reerkii salaameen waa la iskartay oo la iswareystay. reerku waxa uu sheegay in subaxaad naga tagtay mid habaar qaba uu saci ka dilay inay maalmo barooranayeen dariskuna u soo gurmaday. taasi kadib waxay garowsay inay ka faa'iideystaan isbeddelka ku yimid naftooda oo wax hor la qabsadaan. waxay go'aansan inay beer tabacadaan maadaama ay qoys balaaran yihiin. awoorkiisina way soo qaateen. xilligii ugu horeysay markii beertu u soo go'day ayay deyntiis ka baxsheen. soo horeyna guriga dhagaxay ku dhisteen. waxayna qorsheynayeen in midho badan u soo go'aan. waxayna yiraahdeen inkastoo markii hore aad u barooranay haddana waxaan ogaanay waxa horumarka noo diiday inuu ahaa sacaas. markaas xikmadani wiilku wuxuu ku yiri xikmadda nolosha lagu horumariyo waa adiga oo sacaaga dila. qof walba wuxuu leeyahay sac ama darbi uu jebin karo ama ka horjoogin hadafkiisa gaaro. taasoo qof markuu fakaro kadib u soo baxda oo khatar badan tusta. sidaas daraadeed qofka fuliga cabsi gelisa kadibna fakarkiisa burburiso horumarka uu diida. haddaba reer saca horumarka ka hortaagan kadibna gowrac si aad horumarka adeegsanaysa u gaadho. cudurdaarka dadka ku cudurdaatan waxaa ka mid ah cudurdaar xaalad caafimaad, cudurdaar xaalad lacag la'aan, cudurdaar xaalad da' iyo wixii la mid ah. cudurdaarka xaaladda caafimaad waa adigoo ku cudurdaatay inaad jir ahaan caafimaadkaagu dhannayn ama aadan lixdaada dhexaad aadan lahayn sida inaad tahay curyaan dhagoole indhoole iyo wixii la mid ah. laakiin waxaasoo dhan cudurdaar kuma noqonayaan kaamana hortaagi karaan inaad noloshaada horumariso oo aad ka miro dhaliso riyooyinkaaga mustaqbaleed. qof heer sarana aad noqotid. waxaad uga wasoonaataa inaad tahay qof wax bedeli kara xaalad kasta oo aad ku sugan tahay aad u gaari kartid. adigu aad rabtana aad guul ka gaari kartid. adiga ayaa ku xidhan tahay inaad horumar isgaadhsiisid. adigu ma kugu xidhan tahay inaad horumarkaaga meel gaadhsiisid ama adigu naftaada meel gaadhsiisid. balse barnaamijka waxaan ku siin doonaa tusaalayaal dad aan lixdooda lixaad dhammaystirnayn. Dr. Saki Cismaan waxa uu ahaa indhoole curyaanna ahaa laakiin ma sameyn cudurdaar xaalad caafimaad ah. wuxuuna ku riyoon jiray inuu noqdo shakhsi muhiim ah waliba ah khadiib imaam iyo daaci islaam ah. haddaba si uga miro dhaliyo riyooyinkiisa waa inuu wax barto. wuxuuna bartay qur-aanka. wuxuuna ku guulaystay inuu 2 shahaado ah bachelor master iyo PhD. wuxuu noqday wuxuu ku riyoon jiray imaam daaciya. waxa kale oo noqday macallin jaamacadeed. wuxuu qoray 24 kitaab oo ku qoray dacwada tafsiirka ilbaxnimada iyo cilmiga bulshada. idhooliye curyaanka wuxuu ku guulaystay inuu xaqiijiyo riyooyinkiisii. qofka labaad Helen Keller waxay ku dhalatay indhala'aan iyo dhagala'aan. waxay go'aansatay inay jaamacad dhigato. go'aankeedina way fulisay. waxay gashay jaamacad wayna ka qalin jabisay. waxay noqotay macallimada jaamacadaha dhigta. qora waxay aliftay buugaag badan
siyaasadda waddankeedana waxay ka ciyaartay door muhiim ah. Hillary iyadoo dhagala indhoolana ah isma aysan dhiibin ama may cudur daaran waxay ka mira dhalisay hankeedii. Nick Fogg waxa uu ku dhashay lug la'aan iyo gacmo la'aan, laakiin waa dhiirigeliyay buwaabi caalamiya. wuxuuna ka khudbaday jaamacadda dugsiyada sare caalamka. wuxuuna yidhi wax laga xumaado inaad aaminto in laga fiican yahay, wax kaloo wax lala yaabo inaad rumaysto inaadan waxba ahayn. cudurdaar xaalad lacag la'aan ah haddaad tiraahdo waxaan qabsan karo maxaa yeelay ma haysto furi wax kasta furaayay, haddaad tiraahdo wax ma qabsan karo mana haysto furi wax walba furaayo ah lacag, waad khaldan tahay. ilaaha weyne waxa uu na siiyey maskax aad waxa rabto aad ku samayn karto ee ka faa'iideyso caqligaaga. Chamberlain weligii muu hor istaagin qofka gaadho horumar, balse maskaxda maran ayaa shaqada qabata. oo raay Dr. Ibrahim Al-Fiqi mati sabool haddii aad tahay bilaa lacag, waxaad tahay sabool haddaad tahay bilaa riyo. oo raay Rani Gogi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.